siyaasi Barre Xaaji Axmed Faarax oo loo garan og yahay Barre Dhagajuun oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa wax laga xumaado ku tilmaamay khilaaf iyo burbur uu sheegay inuu hareeyay xisbi xaakimka talada dalka haya ee Kulmiye sidoo kale waxa uu siyaasi Dhagajuun u dhaliil u soo jeediyay madaxa xisbiga Kulmiye ee uu hormuudka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waliba xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada kelmad ama laba inaan ka idhaahdo xisbiga Kulmiye iyo arrimihiisa xisbiga Kulmiye waa xisbiga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga maanta hogaaminaya way laakiin waxaad moodaa karaamadii iyo sharaftii uu lahaa inay maanta dhulka taalo sharafta ka dhacday xisbiga Kulmiyena cid baa sabab u ah waxaan u arkaa sababta ragga ka dambeeya waxa ay yihiin madaxweyne kow ka yahay madaxweyne Muuse Biixi baa kow ka ah burburka xisbi lagu wada kalsoon yahay oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland taageerayaasha ugu ballaaran leebo aha xisbigu uu ka duwanaa xisbiyada kale maanta halku marayna waa ogna waxa sababay inuu heerka gaaro madaxweynaha iyo rag kale oo la socdo oo guruuba weey waxaan leeyahay ragga xisbigu maanta hadda isleedihiin burburi maayo waxaan u arkaa inaanay burburin karin Muuse Biixi iyo ninka la yiraahdo Maxamed Kaahin ma burburin karaan xisbiga Kulmiye inay shuruucda xisbiga iyo xeerarka xisbiga dib ugu soo noqdaan baan ugu baaqayaa taa inta markaan kaga baxo baaqan u diraya waxa weeye maalin walba hadaynu hoggaanka dalka u dhiibano dad jaahiliina oo aan diinta islaamka aqoon u lahayn oo aynu marka dambe cadaalad xumo ka cabanno labada arrimood isma qabanayaan waxaan soo jeedinayaa dadka maanta aynu u dhiibanayno hoggaanka dalka loo dhiibayo waa inay noqdaan dad jaamacad islaamiga ka soo baxay oo shahaado ka sita nin shalay aflagaadeynayay musharaxa xisbiga Kulmiye ee Maxamuud Xaashi xildhibaanka waxa la yiri dadka yaqaana sida ay ugu sheegeen waxa la yiri waa nin haduu kula socdana hunguri kugu raacaya haduu ka socdana hunguri kaaga tagay nin wixii qiimo badan leeyihiin ma isagana inta u dhaafi maayo geesta kale waxa uu siyaasi Barre Dhagajuun baaq u diray siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo uu tilmaamay inuu yahay ninka qura ee badbaadin kara xisbiga xaakimka talada dalka haya ee maanta karaamadiisi dhulka ku sii socoto waa sida uu hadalka u dhigay isla markaana uu sheegay dhaliilihii iyo qudbadiisii shalay inay tahay mid xaqiiqada ku salaysan isagoo martaasi ka hadlayna waxa uu yiri baaq u diraya Maxamuud Xaashi madaxweynaha mustaqbalka Maxamuud Xaashi Cabdi baan baaq u diraya baaqan u diraya waxa weeye maanta xisbigi Maxamuud Xaashi Cabdi waxaan leeyahay maanta xisbiga halku marayo waa dogta waa xisbi magaciisa si baabaayo waa xisbi taageerayaashii iyo shacabkii uu karaamada ku lahaa ay ka sii durkayaan oo ka sii fogaanayaan waa xisbi maanta beelbeel looga baxayo xisbi maanta beelbeel looga baxayo oo dadkii ka sii fogaanayaan xisbiga Kulmiye mooyaane xisbi kale oo hal heer ka gaaray ma jiro Maxamuud Xaashi waxaan ugu baaqayaa maanta xisbigaada lagaaga baahan yahay inaad badbaadiso waxa lagaaga baahan yahay inaad golaweynihii xisbiga golihii dhexe xisbiga aad qabato waxaan kaga baxayaa hadalka Maxamuud Xaashi oo aanu hambaliyeynayo oo qudbadiisii shalay aan hambaliyeynayo waxaan leeyahay kelmad kasto aad shalay sheegtay oo qudbadaada ku sheegtay run bay ahayd
xaqiiqday ka turjumaysay waaqiciga maanta xusbigu ku sugan yahay ayay ka turjumaysay Muuse Biixi wuxuu ku wacad furay xusbiga kulmiye qoorweyntiisii uu ku wacad furay madaxweynihii xusbiga kulmiye aasay Axmed Siilaan uu ku wacad furay wuxuu ku wacad furay raggii kale qoorweynta ahaa adeerkiisay in laga garaacayay albaabka laga xidhay qabiyo tire iyo raggii noocaas ahaa ee qoorweynta ahaa ayuu ku wacad furay waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland ka indha qarsan maayo gefka Muuse Biixi ku sameeyay xusbiga waxaan leeyahay waa in xusbiga karaamadiisii iyo sharaftiisii la soo celiyo oo Maxamuud Xaashi oo waliba aad soo celiso waa Maxamuud Dabaadir Bulsha TV Hargeysa.